Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtii waa idin salaam meel walba adduunka ka joogtaan. Maanta maxaa inoo wadaa digirtan ayaa inoo wadaa maasha Allah. Waxaa nooga sameyn doonaa bajiyo. Digirta haysato ayaa bajiyo ka sameysan kartaa insha Allah. Ani maanta digirtan ayaa ka sameynayaa. Cadas hadaa haysatan waa ka sameysan kartaa amba misirta sida u garanaysid insha Allah. Haya asxaabey digirtan waa soo dhaqayaa, waa soo nadiifinayaa insha Allah. Markaas ayaa isku soo naqaneynaa insha Allah asxaabey. maasha Allah tabaarakalla, digirteeni waa noo soo dhaqay, waa noo soo nadiifiyay. Hadda habeen ayaa la marooyaa, habeen waaye. Biyahaas ayaa la dhigayaa, wax badan ayay la aaleysaa insha Allah. Adii subaxdiga ayaan isku soo naqaneynaa hadduu aliira asxaabey. maasha Allah digirteeni ilaa xalay ay biyo la tiile maasha Allah. Qaar ayaa qobki ka fuqay, qaarna qobki ma ka fuqin, wuu ku dhagayaa. Markaas dhib ma lahan, waagii hore qobka dhan waa laga fuji jiray, hadda dhibkaas waa la nacay. Waxaan sameynayaa wixii ka fuqay waan ka soo nadiifinayaa, waxaan ka fuqinna waa iska dhaafayaa. maxaa yeelay qobka waa caafimaad ayuu leeyahay, alyaaf ayaa laga helaa maasha Allah. wax dhib ma lahan. haddana insha Allah waa noo soo nadiifinayaa, waan soo wasaqdaas iyo qobobkaas ayaa ka soo bixinayaa, waa isku soo naqaneynaa asxaabey insha Allah. saas ula socda maasha Allah. digirtii waan soo nadiifiyey, wixii oo qobki ka soo fuqay ayaa ka soo nadiifiyay. waxaan qobka ka soo fuqinna waa iska dhaafay, dhib ma lahan. marka waxaan sameynayaa, waxaan ku darayaa basal iyo kabsar iyo toon ayaa halkan kusoo diyaariyey. ayaka ayaa ku darayaa si oo bajiyo qatara caraf badan oo u noqdo insha Allah asxaabey. haddana waa noo shiidayaa, waxaan sameynayaa xurbinka oo korontada ayaa soo qaadanayaa insha Allah. xurbinka korontada hadaa haysanin xitaa waxaa ku shiida kartaa qalaadada oo casiirka amba makiinka casiirka waa ku shiida kartaa, dhib ma lahan. laakiin makiinka wuu ka fudud yahay kan kale. wax yar oo biyana waa ku soo reebay, maxaa yeelay haddayna biyo yar lahayn ma shiidmayso asxaabey insha Allah. biyo yar u yeel marka xurbinkan korontada aad ku shiidaysid, biyo yar u samee, ugu reeb meesha insha Allah. markaa shiida isku soo naqaneynaa asxaabey maasha Allah. bajiyaheeni waa noo shiiday, saan ayuu ku soo baxay. haddana waxaan sameynayaa wax yar oo baking powder ayaa ku darayaa, maxaa yeelay xoogaa qajac ayuu ka dhigayaa. baking powderkana ha ka badinin, markaa ka badiso saliid ayuu kaa cabayaa, dhexda cajiin ayuu ka naqanayaa, ceeriin insha Allah. iska ilaali. haddana waxaan sameyneynaa cusbo ayaa ku dareynaa insha Allah asxaabey. wax yaroo cusbo ayaa ku darayaa. haddana waxaa inoogu darayaa insha Allah, maadaama oo wax yar aan biyo ku shiiday, bur ayaa ku adkeynayaa. wax yar oo bur ayaa noogu darayaa insha Allah, si oo adeeg noogu noqdo, xoogaa oo biyo nooga naqanin insha Allah asxaabey insha Allah. markaa soo qaso isku soo naqaneynaa insha Allah asxaabey. saas ula socda maasha Allah. bajiyihii waa noo diyaariyey, qeyb ayaan bacahan ku shubtay, maxaa yeelay maadaama oo ramadaan soo dhow yahay insha Allah. ilaahay hana gaarsiiyo, waa idin tusaayay tusaale, maxaa yeelay markaas hool lama jecel, waa ogtihiin. kor ayaan gishanayaa, meesha barafka ayaa gishanayaa, qeybba maalin ayaa soo baxsanaysaa. wax yar u baahantaha ayaa bacda ku xiranaysaa. qoyskaada intuu la egyahay adiga ayaa og insha Allah. howl fududees dhib waa la naca ku dhahay maasha Allah. haddana qeybtii kale ayaa noo dubayaa, saliid ayaa dabka soo saaray. saliidana dabka u gaabi, dab dheer ha ku dubin bajiyaha, maxaa yeelay dhexda ceeriin ayuu ka naqanayaa. haddana qaandadaas ayaa noogu soo qiyaasayaa insha Allah bajiyaha maasha Allah. bajiyaheeni waa noogu soo shubay, waxaan sugeynaa intuu hoos kasoo gaduuta ayaa sugeynaa, intuu kasoo gaduudanaya ayaan sugayaa. waa isku soo naqaneynaa insha Allah maasha Allah asxaabey. bajiyaheeni hoos wuu ka gaduutay, qeybta kale ayaa u gadinayaa, waa isku soo naqaneynaa asxaabey maasha Allah. bajiyaheeni sidaan ayuu kusoo baxay maasha Allah. dahabi qurux badan ayuu noo noqday. waan ka saarayaa insha Allah, qeybta kale aan ku shubayaa, waan isku soo naqaneynaa asxaabey insha Allah. markaas ayaan idin tusayaa qaybta dhexda ka duleesho sida uu sameeyay. qaybta dhexda ka duleesho ayaa ku jirto
maasha allah. Asxaabi maasha allah, qaybta dhexda ka duleesha birtan ayaan ku sameynaya. Waagii hore gacan ayaa lagu sameey jiray, hadda waa la nacay maasha allah. Birtaas ayaa lagu sameysanayaa. Haddaa birta haysanina gacantaada ku sameysan kartaa, wax dhib malaha maasha allah. Sidaas ayaa ugu soo shubeysaa, kabacdi waa ku dhex rideysaa. Howl fududeys markaa dhammeena ayaa isku soo naqaneyna asxaabi. maasha allah. Bajiyaheeni sidan quruxda badan ayuu noogu soo baxay. Waa noo soo dubay, basbaas ayaa usoo tumay, basbaas cagaar. maasha allah tabaarakallah. kaal iska arag ayuu kusoo baxay, gudgud maasha allah, dahabi dahabi ayuu kusoo baxay. ramadaanka waa ogtihiin howl lama rabo. insha allah ilaahay hana gaarsiiyo caafimaad, ilaahay hanuu gaarsiiyo. qaybta dhexdana ka duleesha sidan ayuu kusoo baxay maasha allah tabaarakallah. wuu isla eg yahay, dhexdan wuu ka duleelaa maasha allah. waagii hore gacanta ayaa lagu sameysan jiray, hadda laakiin bir iyo waxyaabaa la keenay, waa la hormaray maasha allah. sidaan ayuu kusoo baxa. qaybta kalena waa idin tusayaa insha allah. maasha allah tabaarakallah. qaybta kalena sidaan ayuu kusoo baxay asigana doondoon camal maasha allah. qaandada gacanta ayaa wax yar ku simeysaa, wuxuu kuu noqonayaa, wuu isla ekaanayaa maasha allah. qurux ayuu kuu noqonayaa maasha allah tabaarakallah. kaal iska arag waa bajiyaheena. qaybta dhexda kana waxaa idin tusayaa dhexda sidoo ka noqday ayaa idin tusayaa insha allah. maasha allah. dhexdiisa dhan faadi, wax cajiina malaha maasha allah tabaarakallah. bajiyahaada waxaa waay basbaaskaada ku cun haddaa rabto. dad bur u sameyso, sambuus u sameyso insha allah. asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen bajiyahayga. intaa fiideo lamida ku kulmi doono, waxaan idin rajeynayaa kheyr. salaamullaahi calaykum.